Wallets waa maxay wallet sideese loo u shaqeeyaa? Waxaa laga yaabaa marar badan inaad maqashay wallet. Wallet micno ahaan waxaa loola jeedaa boorso, sidoo kale waa aalad ama barnaamij ama application ama qalab. Wuxuu noqon karaa walletka ama barnaamij uu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa qalab. Walletku waa barnaamij ama qalab casri ah oo aad ku keydsan karto, ku maamulan karto ama aad ku kala dirsan karto cryptocurrency sida Bitcoin iyo wixii la mid ah. Ma aha boorso caadi ah, balse waa wax haysta case ama fursadeed oo aad ugu xidhiidho cryptocurrency-gaaga blockchain. Waxa uu ka shaqeeyaa laba fursadeed. Public key furaha dadweynaha waa adresska ama ciwaanka walletkaaga oo aad la wadaagi karto qof kasta. Tani waxay u shaqeysaa sida account number oo kale. Dadka aad la wadaagtay waxay kugu soo diri karaan crypto. Labo, private key. Private key waa furaha sirta ah. Waa passwordkaaga crypto. Tani waa fursadeed qarsoon, kaliya adiga ayaa leh. Haddii aad qof kale la wadaagtana, waxaad ku waayi kartaa ama ku xiri karaan walletkaaga. Noocyada walletska waxaa jirta 4 nooc oo wallet ah. Hot wallet. Hot wallet wuxuu adeegsadaa ama uu ku xiran yahay internetka. Wuxuu la xiriiraa internetka si joogto ah. Aad ayuu u sahlan yahay hab adeegsigiisa. Tusaale waxaa ka mid ah Trust Wallet, MetaMask iyo Coinbase. Cold wallet. Cold wallet uma baahna internet. Waa qalab ama kaar kaasoo loo adeegsado sida USB oo kale, umana baahna internet. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah Ledger Nano, SX iyo Trezor. Haddii aad lumiso qalabka, waxaad waayi kartaa cryptocurrency-gaaga. Software wallet. Software wallet waa barnaamij computer. Waxa uu ka fiican yahay hot wallet, laakiin uu ka khatar badan yahay cold wallet. Tusaale waxaa ka mid ah Exodus, Electrum iyo kuwa kale. Paper wallet. Paper wallet waa kaarka qoraalka. Waa kaar ku qoran public key iyo private key labadaba. Haddii aad kaarka lumiso ama adeegsado cid kale, waxaa lumi karaan cryptocurrency-gaaga oo dhan. Sida loo sameeyo wallet. Dooro nooca walletka aad doonayso inaad samaysato. Tusaale waxaad dooratay hot wallet. Hot wallet markaad doorato, soo dejiso barnaamijka. Tusaale ku qor Trust Wallet App Store ama Play Store midkood. Abuur wallet. Wuxuu ku siin doonaa private key. Fadlan ilaasho. Haddii aad danaynayso sida loo abuuro Trust Wallet, linki muuqaalka waxaan idin soo dhigi doonaa qaybta hoose ee description. Walletku waa xiriirkaaga crypto iyo blockchain-ka. Isku day inaad adeegsato cold wallet haddii aad haysato crypto qiimo sare leh. Intaynu muuqaalkan mid la mid ah dib ugu kulmi doonno alla idinkii. Isma dhaafin.